بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله maantana waxaan ka hadlaynaa dadka oo maaragtay cilaajka dhibka ka haysto yani aan cilaajka loo ogoleen inuu sameeyo ama oo yani oo arintii inuu maaragtay xooga saaro ayaa loo diidan yahay. يعني waxaan ka wadaa qof ayaad arkaysaa gabar ha noqoto mise wiil ha noqdo oo ila soo xiriiraya marka wuxuu qaba ayaan u sheegayaa waxaan u leeyahay cilaajkaaga waa sidaa waa inaad sidaa iyo sidaa samaysid. laakiin gabadhaasi mise wiilkaasi wuxuu la degan yahay hooyadiisa iyo aabihiisa la degan yahay. hooyo aabana maaragtay ma ogolo inuu qofkan is cilaajiyo. waxaa dhici kartaa inay yihiin dad oo maaragtay sixirka dhahaya dadka qaarkooda jiro oo khuraafaad dhahaya wa hada laa yajuus sharcan. sixir wax la dhahayo ma jiro, il wax la dhahayo ma jiro, waxaan dhan waa khuraafaad waxaan laguma ogol inaad samaysid. horta hadday tahay waalidiin maaragtay hooyo aabba hadday yihiin xoogaa yar arrintu way adkaanaysaa لأن إلهي سبحانه وتعالى بر الوالدين قرآنك أيو كشيء إنه فضل وآدي أدويه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. مركب وحوا إلهي سبحانه وتعالى إن وحوكا كعصنا مسؤوكا وكو أمري إن أديك والدين هذا أدمارك إحسان أموجسد احترام أموجسد baarinimo inaad u muujisid inay waxaasoo dhan ay ka arkaan lianna waxa waaye waxyaalaha ilaahay subxaana wa tacaala adduunkan uu ku soo dedejiyo oo qofka oo dhibka cadaab ka gaaraya adduunkani waxa waaye waa caasi lwaalideyn. qofka caasiga maaragtay cadaabtiisa adduunkan loogu soo dedejiyaa, adduunkan uu ku arkaya qof inkaaran ayuu noqonayaa oo hooye aabba maaragtay oo inkaareen. waxaad arkaysaa qofkii noloshiisa oo dhan waxaa noqonaysaa maaragtay nolol aan baraka iyo maaragtay raaxa aan ku jirin. marka wax axaadiista oo dhan ma soo shisheegi karaan. axaadiis badan ayaa waxaas ku yimid oo maaragtay qofka thumma ummaka oo nabiga calayhi salaatu wasalaam oo saxaabiga ugu celceliyay thumma abuuka oo yiri fafiihuma fajaahid oo yiri nabiga calayhi salaatu wasalaam qof jihaad rabay inuu aado oo hayo hooyadiis aabihiis waxaa la yiri hooyadaada aabahaaga maar jihaadka ayuu ka fadli badan yahay. marka axaadiisan dhan waa naqaanaa. marka waxa waaye waxaa la rabaa qofka maaragtay mu'minka ah mise qofka mu'minadda ah waxaa la rabaa in oo maaragtay cilaajka ay samayso isla markaasna maaragtay hooyo aaban inay raalli ay ka noqdaan. marka maxaa xal ah marka haddii qofka uu jiran yahay il ay ku jirto mise sixir jirkiisa uu ku jiro oo gurigii dadka la degan hooyo aabba gaar ahaan ay ogoleen inuu cilaaj sameeyo, maxaa xal ah? horta kow wuxuu isku dayayaa qofka inuu la hadlo hooyo aabba oo si fiican ugu sharaxo oo sida loo haayo xanuunka haayo kow. tan labaad duruusta culammada oo ma arkaan oo waxaan ka hadla isha iyo sixirka iyo waxyaalahan ka hadla inuu u daaro ay dhegaystaan mise ay fiirsadaan ay fahmaan. labadaas haddii socon waysi markaas wuxuu sameynayaa qofka inuu qof oo wadaad u tago oo magaalada kula degan oo waxay aad u sheegatid hooyo aabba ina igala hadashid dad qof ay ka xishoonayaan oo maaragtay oo hadalkiisa ay maqlaayaan inaad keentid oo qofkaas la hadlo. haddii arrimahaas ay socon waysi marka adiga waxaa kaliya ku hortaagan waxa waaye maadaama adiga wax oo ilaahay raalli aan ka ahayn aadan samaynaynin yacni waxa waaye waxaa la rabaa qofka itaacadiis waxay imaanaysaa markii adiga oo wax kuu xun oo adiga ilaahay raalli aan ka ahayn aad samaynaysid. markaas waa markii ilaahay subxaana wa tacaala uu kula xisaabtamayo hooyo aab maxaa hadalkood u maqli wayse. laakiin wax adiga maslaxadaada ku jiro caafimaadkaada ku jiro oo aad jiran tahay aad og tahay inaad jiran tahay aadna u baahan tahay marka waxa waaye wax kale kuma horyaallo inaad adiga maaragtay qolka adiga aad degan tahay inaad isku soo xirto aad rushayso. haddaad rushaynaysid inaad meesha aad ku mantagto daawada caloolbaxa meesha aad ku cabto ayagoo maaragtay oo
aan ogeyn inaad sameeyo laanna waxaan waad qarinaysaa dantaa kugu qasbaysa inaad qarisid laanno dhib kale ayaa ka imaanaya tii ka weyn ayaa imaanaysa marka adiga waxaaga inaad hoos ku wadato ood iscilaajayso oo hooye aabbana ma aragtay oo aad ka qariso haddayna ay ma aragtay oo ay ku arkaan aad fahamsiisid insha allah isku day inaad fahamsiisid inaad aad iyo aad u jirantahay arrintaadan waa inaad si ma aragtay si serious ahaan aad ugu sheegtaa si dhab inaad ugu sheegtid oo adiga inaad tacbaan tahay xaaladaada xun tahay marka waxaan dareemaya insha allah hooye aabba haddii jacayl ay ku qabaan biidni illahi alkariim hadalka way dhegeysanayaan oo cilaajkaaga sidaas ayaad ku bilaabaysaa insha allah waxaa jiro dad kale oo yani waxaa jira dad oo dhalinyaro guri isla degan dad dhalinyaro ah oo guri isla degan mise gabdho oo dhalinyaro ah oo guri isla degan oo isla ijaarka isla baxsado gabdhaha qaarkooda marka waxay dhaheen sheekhow gabdhaha nala degan ma ogolo inaan cilaaj wax sameeyo ayadan arrintaasoo kale qofkan hooyadaada aabbahaaga ma ah horta kow tan labaadna waxa waaye inaad is ixtiraantiinna waa xaq waa laana jiiraana tihiin waa isla degan tihiin dad wax isla qaybsada ayaa tihiin marka inaad ayagana sidaas oo kale aad fahamsiisid oo duruusta aad u daartid iyo waxyaalahaas haddaad aragtid inay qanci waayeen marka adigana qolkaaga waa inaad isku soo xirtaa oo qolkaaga aad iska rushaysa maadaama gurigoo dhan aad rushayn karin qolkaaga isku soo xiraysaa waa iska rusheynaysa sariirtaad iska rusheynaysa armaajooyinka iska rusheynaysaa derbigaad iska rusheynaysaa sariirtaad iska rusheynaysaa qolkaaga ayaad qur'aankaaga ku shidanaysaa wixii lagu shidaa guriga qolkaagaad ku shidanaysaa gaar ahaan waxaad raadinaysaa waqti aysan ayga joogin sidoo maaragtay uunkii iyo wixii uun usoo gaarin marka sidaas ayaad isku cilaajeynaysaa insha allah marka waxa waaye dhibkan waa jiraa dad badan ay la soo xariiray oo dhahay sheekhow aniga cilaajka ma sameyn karo laanna dadka guriga ila degan waxaan dhan ma fahamsano waxaanoo dhan wallaahi subxaan allah dad muslimiin isu sheegaya ayaa jiro oo dhahaayo sixirka waa khuraafaad ishan waa khuraafaad waxaan waxba kama jiro kitaabka ilaahiyna way ku qoran tahay inuu sixirka jiro sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaamna way ku timid inuu maaragtay sixirka xaq yahay oo wax jira yahay oo qofka noloshiisa wax dhaawaca gaarsiinaya marka waxaasoo dhan asoo jira ayaad waxaad arkaysaa qof oo ahlilqibla ah oo ilaahi nabiga calayhi salaatu wasalaam aaminsan oo waxaana dhahaya maaragtay waa khuraafaad marka waa jahliga ayaa badan insha allah ilaahi subxaana wa tacaala dadkaas ha soo hadeeyo insha allah marka adiga sidaas ayaad isku cilaajeynaysaa biidni illahi alkariim ilaahi subxaana wa tacaalana caafimaad ayuu kugu daraya biidni illahi alkariim hooyadaadii aabbahaagan waad ka ducaysanaysaa adigana insha allah waa is cilaajeynaysaa biidni illahi alkariim waana biidni illahi alkariim ilaahay baraka ayuu kugu darayaa hadduu hooye aabe iyo raalli ay ka yihiin insha allah marka waxba niyada ha iska jibinin insha allah cilaajkaaga iska bilaaw ilaahay subxaana wa tacaala xaalkaaga wuu ujeedaa anagana waa kuu soo ducaynaynaa insha allah inuu ilaahay caafimaad ku siiyo subxaanaka allah bixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa ant nastaghfiruka wanatuubu ilayk wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu